Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhowow daawaday barnaamijkeenii taxanaha inoo ahaa ee dhimashadii caddeyd qaybtiisii 6aad. Qareenkii booliiska wuu fadhiistay. Booliiska ayraboorka jooga wuxuu soo istaagay maxkamadda horteeda. Aana waxay dareentay xanuun. Waxay fiirisay Sahro wejigeeda wuu caddaa, wayna cabsanaysay. Aana waxay isku xirtay indhaheeda, wayna fikirtay. Qareenkii booliiska wuu soo istaagay. Fadlan u sheeg maxkamadda wax ku saabsan Sahro Haalan iyo Xasan, ayuu dhahay. Ayraboorka waxa ka dhacay. Ninkii booliiska ayaa ugu jawaabay, haa mudane. Waxaa jiray 2 tubo oo daawada cadayga ah. Gabadha boorsadeeda ayuuna ku jiray, halka kan kalena uu ku jiro wiilka boorsadiisa. Dhammaantood waa 3 tubo oo heroin ah. Waad mahadsan tahay. Qareenkii booliiska wuu fadhiistay. Mudane Jeng, Sahro iyo Xasan qareenkoodii ayaa soo istaagay. Wuxuu weydiiyey, maxay Sahro Haalan dhahday marka la helay daroogadan? Waxna mudane, waxay bilowday inay oyso. Waan arkaa, ma cabsanaysay? Ninkii booliiska wuu fikiray daqiiqad. Ma garanayo mudane, laga yaabee way cabsanaysay. Waxna ma dhihin ma hubtaa? Ninkii booliiska ayaa mar labaad fikiray. Hagaag mudane, waxaan u malaynayaa inay dhahday, kani ma ahan daawada cadaygayga. Wax kasta way qaldan yihiin. Waan arkaa. Ka waran ninka dhalinyarada ah, Xasan. Muxuu dhahay? Hagaag mudane, asigoo aad ayuu u xanaaqay. Ma ahan daroogo, taasi run ma ahan. Adiga ayaa dhigay meesha, ayuu dhahay. Waan arkaa. Waad mahadsan tahay. Ma ii sheegi kartaa sababta aad u baartay boorsooyinka labadan qof? Adinka had iyo jeer ma fiirisaan qof walba boorsadiisa. Taasi waqti miyaysan ahayn, ayuu dhahay Mr. Jeng. Ninkii booliiska mar la saddexaad ayuu fikiray. Hagaag. Maya mudane, ma samayno. Waan cabsanayaa, ma kuu sheegi karo, ayuu dhahay ninkii booliiska. Maxaa dhahaysaa? Mudane Jeng ayaa ugu jawaabay si xanaaq leh. Dabcan waa ii sheegi kartaa. Tani waa maxkamadda sharciga. Wuxuu fiiriyey xaakimkii. Kani waa su'aal aad u muhiim ah. Waxaynu u baahannahay sababta. Xaakimkii wuxuu fiiriyey ninkii booliiska ayraboorka joogay. Waan ka xumahay, ayuu dhahay. Fadlan ka jawaab su'aasha. Maxkamaddu waxay u baahan tahay jawaabta. Haa mudane. Hagaag. Waxaa jiray wicitaan taleefon. Qof ayaana soo wacay inta aysan diyaaradda imaanin. Qofka isoo wacay wuxuu i dhahay, waxaa jiro xoogaa daroogo ah oo diyaaradda dhexdeeda ah. Gabar iyo wiil dhalinyaro ah ayaa wado. Waan arkaa, mudane Jeng ayaa dhahay. Wuuna dhoola caddeeyey. Taasi waxay leedahay xiiso. Yaa sameeyey wicitaanka taleefonka? Ma garanayo, ninkii booliiska ayaa dhahay. Wuxuu ahaa nin, wuxuuna ku hadlayay luqadda Ingiliishka. Ma garanayo magaciisa. Si dhaqsi leh Aana waxay maqashay cod. Waxayna fiirisay gadaasheeda. Waxaa imaaday nin dhalinyaro ah oo dheer. Aana way garanaysay. Wuxuu ahaa Stephen, Sahro saaxiibkeedii hore. Nin booliis ah ayaa u keenay kursi Aana agteeda. Xalqadeennii maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Inta aynu xalqad midaan la mid ah ku kulmi doonno waxaynu kaga tegaynaa sidaa iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.